dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa barqanimadii maantay ka dhacay deegaanka Labagal oo u dhow degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa u dhaxeeya laba maleeshiya beelood oo ka soo kala jeeda degmooyinka Caabudwaaq iyo Cadaado ee isla gobolkani Galgaduud. Waxaa la soo warinayaa in dagaalkan uu salka ku hayo dhul daaqsimeed iyo baraago ku yaal halka uu dagaalku ka dhacay. Haddaba waxaan ka wareysanay siday wax u dhaceen Cabdiraxmaan Maxamuud Macalin Yuusuf oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Gaagaab oo jooga degmada Xeraale. waxaan ka ogahay meel Caawda u jirto 18 kilomitir ama 20 kilomitir oo kaga beegan dhinaca qorax meesha ay ka soo baxdo oo ama dadku yaqaan bariga oo kale meeshaas kulli maanta musiiba ka dhacday dadku waxay iskugu yimaadeen aan wararka ka helayno dhul daaqsimeed ama baraago iyo wax la qodayo wax saas ah intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna Ilaahay ha bogsiiyo kulli waxaa naga soo gaarahayay dhinaca Caabudwaaq beesha degto ilaa 7 qof meelahaas inay ka dhimatay dhaawacuna uu badan yahay iyagana ilaa 15 ruux ilaa 10 meelahaas lagu qiyaasay dhinaca qolada xigtana ayagan saas oo kale 6-7 dhaawacuna uu meelahaas ka dhow yahay saas ayaa naga soo gaaraysay. Marka wax saameyna uu idinku yeeshay dagaalkan dhacay maanta ma jiraan. adeero waa saameyn meel buu nooga leeyahay oo dad islaamaho dagaalay oo daris ah dhibka iyaga soo gaaray anagana waa la qaybsanayna waa ka xunnahay laakiin wax hadda saameyn ah oo maarta kale oo nagu leeyahay malahan. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Gaagaab oo inooga waramayay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Labagal ee gobolka Galgaduud.